iyadoo dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay xubnaha cusub ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ee shacabka ku dhaqan gobolka Saraar waxay si mug iyo miisaan bale u soo dhaweeyeen magacaabista xubnaha golaha wasiirada ee cusub. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Caynaba ayaa ka soo qayb galeen waxgaradka cuqaasha culimadiinta aqoonyahanka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Saraar ayaa waxay si gaar ah ugu hambalyeeyeen wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Hinda Jaamac Xirsigani waxayna madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ku amaaneen inuu soo magacaabay wasiiro ka soo bixi kara shaqada qaranka ee loo igmaday waana kuwan iyagoo guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Saraar ee arrintaasi ka hadlaya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku hambalyeeynaa xukuumadda cusub iyo wasiirada uu soo dhisay waxaanu ugu hambalyeeynaa dhammaan mid kasta gaar ahaan kuwa uu ka soo jeeda gobolka waxaanu leenahay madaxweyne wax kasta oo aad magacowdo waanu kugu garab taaganahay. Soomaaliya kaliya laba aan uga dirayaa madaxweynaha iyo madaxweynaha Soomaaliland loo doortay Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Sayid waxaan kale oo ku hambalyeeynaa golaha wasiirada ee xulka uu ku keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u hambalyeeynaa gaar ahaan waxaanu aad u taageersanahay oo aan u aqbalsanay kuwa ka soo jeeda gobolka Saraar ee u dhashay ee uu magacaabay. Wassalaamu calaykum. jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kullay waa nin loo xushay dalka inuu madaxweyne ka noqdo. dadka uu soo xushayna ma wada aqaano laakiin waxa weeyaan waxaan aaminsanahay maadaama uu isagu soo xushay inay dhammaan dad wax ku oolayeen. si gaar ah waxaan ugu hambalyeeynaa labada wasiir ee gobolkan ka soo jeeda cusub ee la doortay ummadda reer Soomaaliland ay xulatay ee dooratay Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay xilka aad qaaday Ilaahay ha kugu asturo. waxaan kale oo u hambalyeeynaa oo isaguna uu ku jiraa wasiirada uu xulka ah uu la baxay ee hadii eeba idmaaye maskaxdiisa iyo hadii eeba aqligiisa uu ka helay. jeerina aad iyo noo salaameynaa madaxweynaha iyo wasiirada cusub intaba hadii aanu hoogaa isleenahay Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo Hinda iyo boosaska loo dhiibay waa ku yar gaaban yihiin oo dalacsiin doona madaxweynuhu insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo uu dalacsiin doona uu madaxweynuhu u qaabeeyay inta ka baqa waxaan leeyahay xaajadu way ka durugsan tahay xil la iska dirishay diiwaan la iska buuxiyay ducaal abaab isbana sida wada doonayna waxaan ku diirsanaa wasagoo dhayad qarra badan hadii daris iyo xuduud dunyada lagu kala dhaco dad biyo laga shida colaad dagaal weyn kuma dhasho hal doorkii uma dhintay waxaynu ka doonaynaa inaan cid la isku dirin waxaynu ka doonaynaa dhismaha caafimaadka dumay inuu ceelka dawray qodo waxbarashada lagu durko aan deegaantana aan la gubin waxaynu ka doonaynaa dadkeena oo kala sarreyn biisaanku dareersan yahay darkana lagu wada dhan yahay. وبالله توفيق. Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirada uu xulka ku keenay aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa siiba kuwa u dhashay gobolka Saraar iyo kuwa kaleba waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. madaxweynuhu Muuse Biixi Cabdi wasiirada uu magacaabay baa soo dhaweynaya kuwa gobolka u dhashay iyo kuwa kaleba waa soo dhaweynaya gaar ahaan Maxamed Xaaji Aadan iyo Hinda Jaamac Xirsigani aad soo dhaweynaya. waxaan madaxweynaha ugu hambalyeeynaa waxaan kula madaxweynaha ka doonayna dhalinyarada 22 casho heeganka ugu jirtay ee gobolka Saraar heeganka ugu jirtay digrotooyinka dambadii waan iska eegay anaga qudhayo oo iska eegayaan dhalinyarada waliba gobolka Saraar way ka doonayeen inaad abaal ku soo celiso. waxaan kala aan fursad ka faa'iideysanayaa isla hambalyeeynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka cusub aan saaxiibada nahay مدن عود بلينا si kale iyo laaba aad iyo aad baad u mahadsantahay madaxweyne si qiimo badan baad gobolada bari u sharaftay adiguna Ilaahay ha ku sharfo shaqadana ku qaasturo iyagana Ilaahay ha ku qaasturo shaqada. wasiirada gobolka Saraar u soo xulay ee ka mid ah golihiisa wasiirada iyo dhammaan wasiirada kale ee xukuumadda uu soo dhisayba gaar ahaan Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo Hinda Jaamac Xirsigani oo kuwa abtirsada gobolka Saraar aad baan madaxweynaha ugu hambalyeeynaa aad baan iyagana waxaan u rajaynaynaa in xilka ku asturo gaar ahaan waxa loo fadhiyaa
golaha wasiirada gobolka Saraar oo ah wasiirkii hore Maxamed Xaaji Aadan waxa ku soo kordhay Hinda Jaamac Xirsigaani oo iyaduna wasiirada cusub maanta ku jirta labadoodaba aad baan ugu hambalyeeynaa aad baan ugu hanweynahay cusub waxaan ugu hambalyeeynaa talaabadii hore uu qaaday uu ku qaaday golaha wasiirada sidoo uu soo dhisay ee wanaagsaneed ee transparency ahayd ee balance ahayd sida qaabka golaha wasiirada uu soo dhigisay hadda aan ku hadlay afka gudoomiyaha gobolka waan ku mahadnaqaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba